waxa weeye dad reer buuhoodlaana iminka mooyaane dad adigu meel lagu tiriyo reer hebel iyo xaggaasay ka yimaadeen la yidhahdo annagu manhiin marka insha allah reer buuhoodle aad baan ugu mahadcelinaynaa siday noo soo dhoweeyeen siday noola dhaqmaan dadkani waa dad Soomaaliyeed deegaan bay leeyihiin bay iyo boqol bay u badan yihiin koonfurta Soomaaliya way degaan dadkaasi dadka iska celiyeen maamul bay leeyihiin wasiiray leeyihiin maamulka Soomaaliland u dhigmay leeyihiin saraakiil bay leeyihiin waa qabiil dhulbaanta shaqo kuma laha reer Soolsi iyo Sanaag iyo Cayn shaqo kuma laha iska celiya annagana waxba nalagama weydiin waanuna ka xunnahay waxaanu soo dhaweynaynaa ma aha dadkaas walaaltinimo iyo wanaag bay awal ku joogeen imika naga dhaxaysa magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxa ka dhacday arrin bulshada Soomaaliyeed guud ahaan ay si weyn uga xumaatay kadib markii ciidamada maamulka Soomaaliland ay dad shacab isugu jira caruur dumar iyo ganacsato oo ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya ka musaafuriyeen magaalada taas ayaa lagu tilmaamay mid ka fog diinteena suuban iyo dhaqanka Soomaaliyeed iyo wada dhalashada sidoo kale culimada waxgaradka magaalada Laascaanood ayaa si weyn uga hadlay sida loola dhaqmay dad hanti ku lahaa magaalada oo muddo dheer degnaa haddaba qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada Buuhoodle iyo ganacsatada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda koonfurta Soomaaliya kana ganacsata Buuhoodle ayaa ka hadlay sida ay u arkaan waxa ka dhacay Laascaanood bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan aad iyo aad uga xunnahay waxa ka dhacay magaalada Laascaanood dadka Soomaaliyeed lagu barakiciyay hantidoodina lagu dhacay waxaan raali gelin ka bixinaynaa oo aan leenahay dadka Soomaaliyeed ee walaalaheena dhibaatadan ku dhacday reer Laascaanood idin ma geysan dadka deegaankeena idin ma geysan waxa idin geystay niman ka soo duulay Hargeysa oo uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliland isagu uu liid u yahay dambigii ay sameeyeen ee dadka birmageydada ah reer Laascaanood ay ku leen jireen iyo dadka deegaankaaba iyagu ay gacmahooda ku laayeen iyagoo gacmahii dhiigii ku leh ay doonayaan dambigii ay geysteen inay dad kale oo Soomaaliyeed waxa la yiraahdo ku cambaareeyaan oo dambiga uga dhigan aad iyo aad baan uga xunnahay dadka reer Laascaanood waxaan ugu baaqayaa ee deegaanka inay arrinta ka dhiidhiyaan oo ka hadlaan oo fikirkooda muujiyaan oo dadka dhibaatada loo geystay ee deegaamada kale ka soo jeeda ee Soomaaliyeed inay u sheegaan iyaga inay dambiga aysan u geysan dambigaana iyaga aysan lahayn ee Hargeysa lagaga soo duulay dadka reer Laascaanood waxaan leeyahay mar labaad dhibaatada idan haysata ee la idin geysanayo tii idinka idin haysatay la idin geysanayo maantana la idinku daray mid kale oo Soomaaliyeed oo dambi idinku aydan galeen dhakada la idinka saaro ka dhiidhiya ka ficil qaata ka hadla wax iska celiya reer Buuhoodlena waxaan leeyahay dad badan baa jooga oo ilaa shalay soo galay oo Buuhoodle oo ka yimid Laascaanood dadka walaalihiina Soomaaliyeed ee Buuhoodle soo galayna idinkuna soo dhaweeya halkani waa Buuhoodle ku soo dhawaada dadka Soomaaliyeed oo dhan xor bay u tahay waa u furan tahay inay ku soo dhawaadaan soo degaan waa ugu baaqana cid kastoo simaadana oo Buuhoodle timaadana nabad bay ku helisaa waxa la yiraahdo muxuu ahaa Soomaaliland waxaan leenahay dhibaatada aad dadka Soomaaliyeed u geysanaysaan dadkiina abaal xun u dhigana meelaha dadkiinu meel walba uu jooga xamar buu jooga baydhabo uu jooga garow uu jooga Kismaayo uu jooga galkacyo uu jooga dadka idinka waxa la yiraahdo aad matashaan ee aad madaxda u tihiin colaad ha u sameynana colaadaad u abuurasaan ka daaya arrintaasi waa arrin islaamnimada iyo Soomaalinimada iyo damiirka qofka bini'aadmiga ee nool marnaba aan ka suuroobayn oo khalad ah cidda samaysayna waa la garanayaa waa Soomaaliland sabab ay u sameeyeen oo dadka ay u tarxiileenna ilaa hadda iyaguna kamay jawaabin kumana qancin karaan dadka Soomaaliyeed tarxiilkaasi sababta uu daranaa laakiin annaga waxa noo muuqata haddaan nahay dadka gobolada Sool Sanaag iyo Cayn dadka in lagu tacadiyay dambi aanay lug ku lahayna dhakada laga saarayo Laascaanood wixii ka dhacay shaqo kuma laha iyagu waxa arinta Laascaanood ka dhacday loo haystaa oo ka dambeeyay oo mar kasta sameeya waa maamulka gacanta ku haysta ee SNM weeyaan annaga lama ildoofin karaan dad masaakiina oo Soomaaliyeed oo deegaanka marti ku ah
oo ka ganacsada oo aan wax dhiba dadka u geysan indhaha iyaga kuma jeedin karaan. الله بركاته والسلام يا بهذا كشالي ميديا marka hore waxaan leeyahay horta waxyaabahan maanta ka soo cusboonaaday magaalada Laascaanood waxaan u arkaa inay cunsuriyad dhaba tahay waayo cunsuriyad hadaan ahayn oramada wada magaalada Hargeysa Burco iyo Berbera waxay u joogaan si dadka kale islaamka ay u joogin waxaan ugu leeyahay maxaa kalifay in dadka Soomaaliyeed raafka hantidooda laga raafo wuxuudii aan maanta meel ka warramaan haynin islaamnimo xil kasta dhan kasta oo loo eego ma aha mid arrin de la qaadan karayo booba loo geystay wuxuudii hantidoodii maanta meel qof ka warramaan lama hayo iyagii nin walba madaxa inta la qabto la soo turiyay baa gaari la saaray meel aanu garanayo gurigiisa baa laga qaaday ee deganaa waxaan leeyahay oramada maanta magaalada Hargeysa joogta waxa kama qabataane waxaad sameynaysaa wax cunsuridaysan oo aad iyo aad u xun oo dadnimada Soomaaliyeed ku xun waliba dadka waxa sameynaya oo ugu badan waa dadka ay dadkoodu dibadaha ay ku maqan yihiin ilaahay waxaan uga baryaynaa kuwa dhibaatooyinka geystay in ilaahay carruurtooda ka soo raafo walaal waa okay xaaladda alxamdulillah waan fiicanahay ma sha Allah anagu waxaan nahay oo marka hore Soomaali deegaankan joognana waa deegaan Soomaaliyeed waxa weeye si wacan baa nolol dhaqmaa waxa weeye dadkii mar hore yimi dadna waxay yimaadeen mar hore dadna mar dambe anagu waxaan dadkii ugu horeeyay ilaa 2003 ilaa hadda waan joognaa caruuraan ku dhaldhalnay waxbay ku bartaan alxamdulillah dadka deegaankana si wacan bay nolol dhaqmaan waxa weeye dad reer Buuhoodlaana iminka mooyaane dad adigu meel lagu tiriyo reer Hibil iyo xagaas ka yimaadeen la yiraahdo anagu manhiin marka insha Allah reer Buuhoodla aad baan ugu mahad celinaynaa ku siday noo soo dhaweeyeen siday noola dhaqmaan de waxaan ka nahay hadda markii hore wiilal yar oo magaalada wadanka yimi baan ahayn hadda laakiin odayaasha waxaan ka midnahay Buuhoodle baan ka midnahay dhalinyarada ka nool magaalada Buuhoodle iyo ku midana oo ganacsada ka may galgun kooyana namadun tamisa diidi bili afraadaan takoy idatun deegaanku dhibaato iyo marmayni ka jeesan deegaan faylo badan roogni arantan oo ka dhiidi magaaladan Laascaanood maamulkan oo Soomaaliland jeesidi arin eed oo ku hunu waayo dadka Soomaaliyeed hata madal kooy ma jirta muslimana iyo ehelmana iyo nagaraamana ya jirta maamulkan Soomaaliland wala soo sanbay eedan ambaarayaan eedan ku huna maarmo garini walaalooy una la roogna ma sha Allah sifeelin dhaqmaan dad wanaagsano walaalow mid basin sheegay walaalayaal dadka Soomaaliyeed meel ka sii roogan walaalo dadkeen dhibaatooyona ma Ilaahay subhanahu wa ta'ala meeliya innamal mu'minuuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum ahantum ka dhiidi Laascaanood eedan ku huna eedan ambaarayaan aran fool xunu may wahan dad islaameen hoolasho ku buri Ibrahim Abdiqaadir Jabaan warbaahinta Kalshaale Buuhoodle